السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرتي قالي قوادين سلامي دل إيدي بد ماشي نقدر ونسان سود هذا إن مدونا يموقع كأنا كوسي دير هذا وحجر الشيخ أو مساجد الأحداث يقصوا أفلقادي أنا ربا أنا أجاوبه ما يستغفر الله والين شيخه وما جوابي لكن أركتي ذا كأهدن أي ربا إن أن هل إلا بأن كده أنت أنا جود قلنا موقعك هل مرة إلا ده هذا شيخ قاس مساجد الأحداث ولي بمالن جماعة قد بلد دكانايو waxa uu iga soo dhahay hal mar ila daawada xaaskayga laba filan u sameeynaya war baabajeeyo jaahil baa tahay war muqdisho riskiya ka jira war mobeelada la isku dilaya war hadaad xaaskaaga dahab rabto inaad siisanin wala dhuumo ana runta ku sheegay wallahi muqdisho dhiba ka jira maanta ninka inta uu madax soo hor istaajiye xaaskiisa yiraahdo dahab baan siinaya waa nin ka dhacsan وانين والن وانين جاهلة وانين وحى مقدشة كجر عن وروهيني إن داود يا شيخ شرفت له مقالك واد أركتين وحكاها لنا سفي عمبد وقول أركتين هذا بقى نيجي وحندونا يا أركتي كجا آدن صدح قضب أوكليه إن أنكده إن أنور كسير ليري أنا جم جعلي تنكوات تصال آن شيخ وحقوق أركي أنا حمان دعوة أما دين الإسلام كا إن رسولك عليه الصلاة والسلام سن حريصنا أي أمد وجود بين جري هذيك قف وراء قف إهلك قف أصحابته أضحتكو أركتي حمان مد كوات هذه عقل قفكو وياهي والشيخ لما يسترن وياهي سيدا أن كارني علماء ذينا وجوه رئيس الشيخ مصطفى قف كنا أدو إماده أعد هذا أولا وراءه واتقلدن تهي وحدكو سعوت حمان وإلهي رالك ماها أمدنا رالك ماها هفسهدين أمدا waa hadii qofka qarad lagu haayo walaalo iska dhaafsi hoosad ugu sheegaysaa qofka waa uu ka qaadan waay waxa ku furan wada labaad ehelo leeyahay qaraabo leeyahay tolo leeyahay asxaabo leeyahay waad u imaanaysaa war qofkiina naar buu ku socdaa wax fiican ma sameeynayo umada xumaan buu u gudbinayaa umadaha laga qabto wanaagiis baan jecelahay jannaan la rabaa ehelkeed u gudbinaysaa wax celiyo amaba wax ijtihaadii aad weyso qodob saddexaad ku furan oo ah in aad babliga dhax keenta dhaado umado ilaahayo ninkan daawada xumaano sameeyna saano yeela kan oo yeela saddexda mid kamid ah ma aadan sameeynin aniga qof la weyn kara ma ihi qof bulshada dhaxdooda magac kula baan ahay hadiiba aan xumaan sameeyay meel aad igala soo xiriirtay ma weynays comment ay soo qori kartid numberkayga youtube ko saaran waa iga soo wici kartay meelaha aan u badanahay qof kasta yaqaan wad ii kataba bajaali ii geeyo asxaabaan leeyahay wada soo hadli kartay inta ma aadan sameeynin go'aankaaga kaga aadan inaad adiga qofka u xugmin karto sida ilaahay inaad tahay oo kale aad kaga hadashay tan labaad waxaad ka soo hadashay misaajid dhexdiisa waxaad igu aflagaadeysay misaajid dhexdiisa waa baytullah waxaad igu tilmaamtay inaan ahay qof jaahil ah waxaad igu tilmaamtay qofka inaan xumaan gudbiyo waxaad igu tilmaamtay inaan xaaskayga bulshada dhexdeed aan ku mashquuliyay taasna waa qalad aad adiga iga gashay ilaahay xaqiisa markii la dhahana waxaan kaaga baahanahay raali gelin bulshada dhexdeeda waxaan kaaga baahanahay raali gelin waa hadii aad tahay qof ku socdo dacwada ilaahay in uu ummadiisa u gudbiyo qodobka labaad waxa uu yiri baabajay oo wanaag sameynaya haba yaraadee qofkii ii keeno maadaama ay ku xiran yihiin 300 iyo wax ka badan waxaan siinayaa abaalmarin gaarayso $1,000 waayahay intaana ka hadlin taas hal mar ila fiiriya muuqaalka youtube-kayga aan soo dhigay waliba 9 maalmood ka hor is ay ku dheehan tahay dareemi karo nolosha iyo maciishadeeda adag sida ay tahay wuxuu fahmi karaa qoyska xaaladooda wuxuu fahmi karaa sabigan waxay u baahan yihiin dugsiga dhigtaan iskuula ee u baahan wad aragtay muuqaalka soo maahan 9 maalmood ka hor ayay ahayd waxaan u gargaarayay qoys waxaan dhahay ilaahay laga cabsado qoyska masaakiinta ah ha loo gargaaro laba aaba ayaa ka dhintay waa hooyo masaakiin ah ilmaheeda dhar markay soo dhaqdo ayay dabka u shidaa haday dhar soo dhaqin ay xanuunsato cidna uma maqno ceelna uma qadno oo uma qodno cadil oo kaliya ayay sugaysaa shiiqow wanaagaas aan sameeyay isdaqadaas aniga aan dhiibanay ma sheeginay hadal bay ku imaaday hadii aadan wanaag u ka siinin wanaaga waxa uu yahay adigan kaaga fadhinaayay waxa rabnaa wanaaga waxa uu yahay inaad adiga naga jaahil bixiso aniga cilmiga jaahil baan ka ahay culimada baan u deenayaa waxa aad dhahday hadii qof muslim lagu dhigi karo ama dacwo qof muslim loo gudbinayo hadii kaga aadan tahay in hadalkaas xumaan lagu dhaho qofka uu ku soo wanto waayna كل تسع رمضان ودينيا إيش عبك الصومالي كل أنا جوحن جوجنا وطن دينته لغة رقمه بقولك وبقول وحنا إسلام وحن كسر كوري دينته وحن كل رقم دينته وحن أهلين
cibaadaysto santiisa waqti dugto soomo salaado ehelkiisa u gargaaro dacwada ilaahay gudbiyo mararka qaarkood inkastoo waa u badanaha aan ku dhihi karin ya waa soomaa waa salaadaa waan cibaadaystaa wax aan ka taga ma lahan xajkana haddii aan aboodo ilaahay wuu igey doonaa ilaan kitaabkaa lagu yiribo haddii qofka uu aboodo wadda loo maray leedahay haddii intaas aan sameeye aadan wanaag u ka siinin koley wanaagga waxa uu yahay shiiqow adigan kaaga fadhiya qodobka saddexaad aan raba aragtideeda kaga aadan muuqaalka oo iga soo sameeyey shiiqaas inaan kaga jawaabo maya ma doonaa inaan u jawaabo sababtoo ah aniga cilmi aan uga jawaabo ma lihi laakiin shiiqow waxaan ku siinayaa talo haddii qof walaal ah aad aragta ceebtiisa ilaahi subxaanahu watacaala waxa uuna faray qofka walaalkaa ceebtiisa inaan asturno ma asturi weyse qofka inaad u imaado dhegta aad ugu sheegto waxa aad ka celiso intaba adiga ma aadan samaynin weligaa iyo allaha iska ilaali qof walaal ah ceebtiisa in aad bulshada sumcad amaba magac amaba sharaf aad kaga raadiso annagii caamka ahaa oo adiga kuu soo ordaynay aan rabnay jahliga nagu soo socdo iyo mugdiga aan kaga jirno inaan iftiin noogu beddesho haddii aad qaabkan oo kale noola hadasho ma kula tahay qof xumaan wax loogu sheegay inuu wanaag kuga beddelayo waa maya qofka xumaanta kusii adkaysanaa xitaa haddii qofka dukanayna markaa dhahdo waryaa taariku salaada taa ma dukatid wuxuu ku leeyahay salaada adiga maa igu leh laakiin haddaad u imaadaa dhahdo ilaahay ka cabso qof muslim baa tahay naar baa ku sugaysa berito anaga islaamaan nahay damiir damqadaan leenahay qofka waxaa macquul ah inuu xataa ereygaaga oo wanaag u qaato wanaaggaasna ilahay adigana ajir uu kaa siiyey maadaama aad qof cilmiga qur'aanka aad sheeganaya aad tahay waxaa fiican wadada wanaagga aad diinta islaamka oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay nagu soo gaarsiiyeen in aad noo soo martiday ahayd koley muuqaalkaa kaga aadan inaan kaga hadla saddex arrimood dhinacaas baan uga baxay culammada dadka culammada la sheeganayo oo diinta islaamkana raba dadka inay soo gaarsiiyaan qaabka qaldanna ummadda ugu jawaabayo qaab qaldanna ummadda ula hadlaayo weliba baytullaahi dhexdiisa weli saxaabi sameeya ma arkin weli ma arkin rasuul calayhi salatu wasalaam oo ilaahay soo diray oo waxaa sameeyey ani weligay ma arkin inta wax noola sheegaayey waxaan arkayay diinta inay ahayd mid nasteexa ah aysan xumaan ku jirin wixii ilaahay qofka uu ka madooweynayo ilaahay subxaanahu watacaala ee gaar u tahay asagaa ka madooweynayo ilaahay qofka hanuunin karo ilaahana qofka baadiyen karo adiga wax ma hanuunin kartid anigana wax ma baadiyen kari laakiin waxaan isku leenahay inaan wax isku sheegno maanta qof la weyn karana ma ihi haddiiba adiga aad rabtid inaad isoo gaarsiisid wadada wanaag waa igu soo gaarsiin kartay adigoo xaaskayga magaceeda soo qaadin kaga hadlin arrintaas kaga hadlin bulshada waxa aan u haayo aniga qof maanta in lixadkiisa dhammaystirnaa miihi cilmiyaa soo barta kuma dhahaye waa ku shaqaysan karaa kuma dhahaayo laakiin afkaasaan ku xamaashaa afka markii lagu xamaalanayo qofka waxaa ka dhici kara gaf waxa uu geli karaa qalad waxa uu geli karaa dembi ilaahay subxaanahu watacaala tuubuu ila allahi toobatan nasuuxan toobada ilaahay waa u furan tahay ninka 99 qof dilayba markuu ninka shiiqi u tagay oo yiri 99 qofoodan soo dilayay ilaahay haddii aan dembi dhaaf weydiisto ma laga yaabaa jannadiisa in uu igu abaalmariyo shiiqi waxa uu yiri qof 99 qof dil iska dhaafay haddaad hal qof dishay xataa ilaahay naarta ku gelinaya shiiqiga 100 kaga dhigay hadduu ugu jawaabi lahay wanaag oo dhihi lahaa inuu toobakeen ilaahay ya cafiska iska lehe ninka shiiqa wuu noolaa lahaa ninkana ilaahay baa wanaagiisa iyo xumaatiisaba kala saari lahaa heer waxa uu gaaray shiiq kale markuu u taga looga qayb wanaagsan looga faray oo wanaagii uu sameeyay meeshii uu joogana uu ka hajiray in labada malaa'ig ba isku dagaalaan anaga ku xaq leh iyo aniga ku xaq leh كل سيدة علماء النور شيئا واي أنا علمي أصابر تمدهاي قف دي وحلو شيئا وانا قال له شيئا ولا الكيغا تهي إسلام تهي قف شيخ شيئا نايا تهي أنا إن كو قف مربي إن كو جواب أنا مدبي ما أنا كو جوابي كري واد إيجا علمي بدن تهي واد إيجا أكتر تهي واد إيجا وناكسن تهي لكن وحافي عن قفك ولا الكأ هدي وجهلي هي إن افتينك أديجا وحد كتستو هدي أن علمك سين علمك إبر أنا قال لك إيسو في ديس علمك إبر إلهي نقيرها كسيان كل ياي كل واحد أقفتي قف ولا الله واحد أقفتي رير واحد أقفتي بلشوا حنا كسمين الأحضور كل إسكول بان كل إلهي وسلامتنا سحبتي دقاليقة هدي أنقفينا إجرا على نقطة بين آدم بانهي قرضوا إجدي عكرا